Manchester City oo balaya banaydba guuldaradii culays ka badnayd ay ka qaabishay toddobaadkan kooxda Lyon tartanka Champions League ayaa waxay marti u noqotay kooxda Cardiff City waliba waxay sidii punchadii oo kale ay waxa jirisay garoonkoodii Cardiff City Stadium bilowga goolka koobaadna waxa lahaa Sergio Kun Aguero oo ka soo muuqday safashadiisii 300 ee kooxda Manchester City. Looking for Bernardo Silva and finding him, Aguero! Of course! Does what he's always done for Manchester City, their record scorer. He's the one that finds the way through. He's been doing it for 300 games in City colours now. Sergio Aguero makes the difference. Marka iyo wixii ka dambeeyayna waxa bilowdayba fatahaadii goolasha ee kooxda City. Goolka kale wuxuu ka yimid Bernardo Silva. Sane to whip it in again and he's going to loop all the way through for 2-0. Bernardo Silva is on the end of it. halka goolka saddexaadna uu dhaliyay Eke Gundogan oo banooni qurux badan ka toogtay meel ka baxsan deelinta 18 goolka. Somewhere Gundogan, Manchester City find that space and Gundogan finds the top corner with a wonderful finish for 3-0 and the champions almost out of sight before half time. qaybtii koobaadna waxaaba lagu kala tagayba iyadoo Heer City ay la baashaalayaan saddexda gool ay ku leeyihiin Cardiff oo joogtay garoonkeedii Cardiff City Stadium. marka la isku soo noqdayna waxaaba dib u bilowdayba bandhigii goolasha ee Riyad Mahrez oo halkaasi ka dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee Manchester City. رياض محرز الرائع في هذه اللقطة. gabagabadii ciyaartana Banoni ay qadeen daafacyada Cardiff City waxa ka faa'iideystay oo ugu shubay goolkooda mar kale Riyad Mahrez يغطي برونو مانجا وتسديدة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. شوف هنا بقى القدرة والمهارة في الضغط وإحياء الكرة والمهارة هنا من محرز وجوارديولا. hadiiba laga riyaaqay magaaladii buluuga ahayd waxa ciil iyo madax xanuun looga hoyday magaaladii guduudnayd oo Manchester United waxay barbardhac gool iyo gool ah ay la dhaafi waysay kooxda Wolverhampton oo marti ugu ahayd garoonkeedii maslaxadda riyada ee Old Trafford.